بسم الله الحمد لله رب العالمين أنا دكتور عبد فارح تانو waxaan rabaa inaan halkan uga gudbiyo hambaliyada bisha barakeysan ee Ramadaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maxaan ku ira wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayaan idin leeyahay intaa ka bacdi walaalayaal masiibo ayaa adduunka ka taagan meel kastaba dalkeenana hadda xanuunkii coronavirus aad iyo aad buu u qasiya gaar ahaan magaalada Muqdisho meelaha kale iyo Hargeysa sidaan maqlay meelaha kalena maxaan ku iraahaa waxaan uga cabsanaynaa inuu ayada laftooda gaaro Djibouti walaalahan ayada lafteeda waa gaaray si xun buu waliba uu qasaya ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu aan garanno oo fahanno hadda dadka dibadaha jooga waxaad moodaa inay fahmeen sida looga hortago waayaantii hore wuu dhakray jug badan oo gaarto dad badan ma nooga dhintay ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada ha ka waraabiyo hadda gudaha ayaa moodaa inaan dadku fahamsanayn xanuunkani xanuun naxaya maaha xanuun dilaa ah dadka waayeelka u daran dadka jirooyin kala qaba u daran dadka maxaan ku iraahaa haweenka uur kale u daran marka waxaan aad iyo aad idinkaga baryayaa inaad samaysaan waxaan loo yaqaano social distance in la kala fogaanshaha waxa la yaqaano aad kala fogaansho samaysaan maasko badan oo wadanka gudihiisa lagu sameeyay oo marka aad afuufto adoo xiran oo taraq aad ku shido aan bahalkii la oran jiray taraqa maaha light cigarka aan dabayn baa jira maaskahaas la gato hal la xirto ha intii la kala fogaan karo hal la kala fogaado meel daruuri ah meelaan ahayn ha isku gelinina waxaan idin leeyahay walaalayaal waxa weeyaan waa xanuun badan tahay waxyaabaha hadda maalmahan soo gaaraya waxa weeye qof baa xanuunsanaya magaalada ku xanuunsanaya wadaadadii masaajidka la soo kaxaynaya cunta loo karinaya sidii iska ahaan jirtay markaas qof corona qaba oo ku akhrinaya quraanka intii waxa ku gudbahaya marka quraan waxa ku gudbahaya yaani dad badan dadkii oo dhan wata xaafadooda la tagay meel kasta la tagay ayaa jira walaalayaal waxa loo kaadiyo quraanka la isku niyeysto la isku akhriyo laakiin ha la soo niyeysto yaan la tagin goobaha qofka bukaanka ay joogo sidoo kale duugida ayada lafteeda waa laga soo raacay dadkii waa laga soo raacaya oo dad dhalinyaro oo badan oo dadka waalidkooda ama awoowayaashooda ama abtiyaashooda ay dhinteen baa jira oo wada tabcaan hadda walaalayaal marka waxaan idin leeyahay dhiifoonaan hal la muujiyo waxa aad u fiicnaan lahayd in hal meel warka laga maqlo adduunka ilaahay dawlad iyo mucaarad iyo cid kasta waa israacday dawladda marka xukunka haysa umbaana looga dambeeyaa dawladdana waxaan aad iyo aad ugu talin lahaa xilligii la dhiifoonaan lahaa waaye cid maxaan ku iraa madax iyo minjo ma kala yaqaano xanuunkan waa in wax kasta oo la dhaqaajin karo la dhaqaajiyaa si run oo loo dhaqaajiyaa runna ummadda lagu dhaqaa haddii ilaahay idmo wixii hore oo dhan kana waa ka duwan yahay marka jasaakum allahu khayr aljazaa walaalayaal taxadar baa laydin farhayaa geerida waa u dhalanay laakiin taxadar la-aan iyo na dilin insha allah